kulan wacan daawadayaal waa Muuse Xosho waxaad ku soo dhawaataan falanqeynada kulan ciyaareedyada xiisaha leh ee Manchester City oo soo dhaweynaysa kooxda Everton iyo kooxda Chelsea oo iyana marti qaadi doonta kooxda Fulham oo aanu falanqeynadooda ku eegayna qaybteena. Kooxda Manchester City oo ciyaarteedu soo horeyso haddii aanu ku bilowno, Manchester City waxaa tababaraheeda Pep Guardiola uu sheegay in ciyaartan Boxing Day-ga ay ciyaartoyda John Stones iyo Matheus Nunes iyo waliba Ederson suuragal tahay in ay seegi karaan. Go'aan rasmi ahna lagama qaadan weli ciyaartoydan inay ciyaarayaan iyo kale. Ciyaaryahanka difaaca ka ciyaara ee Stones ayaa qaybta labaad ee ciyaartii Aston Villa ay kooxdiisu khasaaraha kala kulantay dhaawac cagta ah looga saaray. Ederson iyo Nunes iyagu qayb kama aanay ahayn toddobaadkii lasoo dhaafay ciyaartii horyaalka Ingiriiska ee kooxdoodu ay ciyaartay. Kooxda Everton xidigeeda qadka dhexe ee Dwight McNeil ayaan kasoo muuqan karin ciyaartan kadib dhaawac jilibka ah oo ciyaaryahankani uu ku seegay kulankii kooxdiisu ay la qaadatay kooxda Chelsea. Ashley Young ayaa hal kulan oo ganaax ah isaguna soo qaadan doona. Armando Broca ayaa kusoo laaban doona ciyaaraha kadib markii uu seegay ciyaartii axadda ee kooxdiisu ay la qaadatay kooxda Chelsea oo milkiyadiisa iskale. Haddaba haddii aanu eegno is-aragyada labadan kooxood, kooxda Manchester City ayaana khasaare kala kulmin 15 kulan ee ugu dambeeyay ee kooxda Everton ay horyaalka uga hortagto 13 ka mid ahna waa ay badisay. Everton ayaa badisay kaliya hal mar 22 kulan oo Premier League ah oo ay kooxdan la qaadatay, waxaana ay khasaartay 12 ka mid ah 13 kulan ee ugu dambeeyay. Everton ma aanay adkaan kulan Premier League ah oo banaanka ay kusoo ciyaarto kulan ciyaarto kooxda Manchester City tan iyo 2 gool ah oo ay gaartay 14 sano mar hadda laga joogo. Kooxda Toffees ayaa waxaa guusheedii ugu dambeysay ee kulankan ay ahayd markii 4 gool iyo eber ay garoonka Goodison Park bishii January 2017 ay uga gaartay kooxda Manchester City. Haddii aanu eegno kooxda City waxa ay khasaartay 9 ka mid ah 12 kulan ee ugu dambeeyay ee dhammaan tartamada ay ciyaarto, taas oo ka dhigan in Manchester City aanay 112 kulan ee markaas ka sii horeeyay aanay khasaarooyin intan la eg kooxdu soo gaarin. Guusha kaliya ee ay gaartay waa 3-eber ay Nottingham gurigeeda uga gaartay ciyaaraha Premier League oo 4 December iyadu dhacday. Tan iyo bilowgii November, kooxda Manchester City ayaa kaliya aruursatay 4 dhibcood oo ciyaaraha horyaalka. Kooxda Everton ayaa khasaartay kaliya 2 mar oo ka mid ah 12 kulan oo ciyaaraha Premier League. Everton ayaan laga adkaan 8 kulan ee ugu dambeeyay ee ciyaaraha Boxing Day-ga ama xilliga Christmas-ka, iyada oo ay ugu dambeysay 4-eber khasaaraha Aston Villa ay kala kulantay sanadkii 2005. markaas ayaana ahayd markii ugu dambeysay. Dhinaca kale haddii aanu eegno isna falanqaynta kulan ciyaareed dhex maraya kooxaha Chelsea iyo Fulham oo ka dhici doona gegida Stamford Bridge ay ku ciyaarto kooxda Chelsea wax dhaawacya oo hor leh ma qabto kulanka ay ka hortagayso kooxda Fulham oo derbiyada London isna ka mid ah. Marc Cucurella ayaa dib ugu soo laaban kara ciyaartan kadib hal kulan oo ganaax ah oo uu soo qaatay. Ramiro Lavia ayaa weli sii maqnaan doona kadib dhaawac dhinaca muruqa ah oo xidigan soo gaaray. Reece James, Wesley Fofana iyo Bernard Badiashile ayaa dhammaantood kooxda ka maqnaan doona. Fulham waxa ay qiimeyn doontaa badqabka ciyaaryahanka Smith Rowe, Sasa Lukic iyo xidiga Sander Berg la yiraahdo. Andres Pereira ayaa dib uga soo laabanaya ganaax uu ku maqnaa kulankii lasoo dhaafay. Kooxda Fulham guusha kaliya ay ka gaartay Chelsea 25 kulan ee ugu dambeeyay ee dhammaan tartamada waxa ay ahayd markii Craven Cottage ay ku kulmeen sanadkii lasoo dhaafay bishii January. Fulham ayaan adkaanin oo aan ku adkaan garoonka Stamford Bridge tan iyo 2-eber guul ah oo ay ku gaareen halkaas iyagoo ka wada ciyaaraya horyaalka heerka labaad 1979. Chelsea ayaa khasaartay 2 ka mid ah 34 kulan oo ciyaaraha ay ka hortagtay naadigan Fulham la yiraahdo. Kooxda Chelsea sidoo kale garab dhacay la gashay axadii kooxda Everton, waxaana ay soo dhameysay taasi 8 guulood oo xiriir ah oo dhammaan tartamada ay gaartay markeedii ugu horeysay 16 kulan oo ciyaaraha Premier League ay ciyaarto ayaanay ku fashilantay inay wax gool ah dhaliso oo gool waa laga ilaalishay. Kooxda Fulham ayaa barbaraysay Premier League ciyaaraheedii ugu badnaa ee aan laga adkaan 5 kulan oo tababara Marcus Silva uu hogaaminaya 1 gool iyo 4 garab dhac ayaanay gashay, waxaana ay
sidan oo kale samaysay October 2010 ilaa Augusto isla sanadkaas, markaas oo Mark Hughes tababarihii la oran jiray isagu kooxdan hogaaminayay. taasi waxa ay ahayd falanqaynta iyana ku saabsan kulan ciyaareedka Chelsea iyo Fulham dhexmari doona. ciyaarta Manchester City iyo Everton waxay dhacaysaa 3:00 galabnimo ee waqtiga Geeska Afrika. daawadayaal waad ku mahadsantihiin la socodkeena. inoo subscribe gareeya qaybta YouTube, sidoo kale Facebook-gana follow iyo like-ta inoogu dhufto.